iyo nawaaxigeeda oo la oran karo wuxuu ka mid yahay moolalka ugu casrisan maanta xilliga aynu joogno runtii waa u mahadnaqayaa intii halkan isku soo abaabushay oo kharashka badan ama gelisay halkan aad baa ugu mahadcelinayaa iyadoo oo ay ku soo gudbiyeen magaalada qardho bilicdeeda iyo horumarkeeda waxaa lagama maarmaan noqotay in hantida bannaanka jirta loo soo weeciyo inteeda badan dalka gudihiisa si ay uga qayb noqoto kobaca iyo bilicda iyo wanaagga dalka gudihiisa. walaalayaal moolka wuxuu ka kooban yahay waxaan isleeyahay wuxuu ka kooban yahay dhammaan wixii ganacsi koobnaa xataa timajare waa ku jira. waxaan isleeyahay wuxuu noqon doonaa inkastoo hadda bilow yahay mid laga heli doono ganacsi nooc kasta oo looga baahdo. hadda hoteelkaas soo socda insha allahu oo la mid noqon ama ka sii samayn doono sida la rabo halkan. marka waxaynu kusoo dhaweynaynaa gacmo furan inaad kusoo dhawaataan dadka waxaysta oo magaalada u dhashay oo meelaha ku kala fiirsan nagama lacageen waxa laga yaabaa rag badan oo waxaysta intaa wax dheer baa waxaysta garoomada imaada wax soo geliya dadka waxgarad nabadoono haween dhalinyaro iyo isimo ka hadlay madasha ayaa waxay si weyn u soo dhaweeyeen dhismahan oo runtii ka mid noqday dhismayaasha ugu caalamisan kuwa xilligan ka jira Puntland. labadii sano ugu dambeeyay saddex sano ugu dambeeyay waa ka muuqatay magaalada inay horumar fiican sameynayso ama dhismayaasha ama hoteelada ama isbedelka ka muuqda. markii hore waxaan islahayn waa laga tegay laakiin hadda waxaa muuqata inay soo gaartay magaalada hadda ay dhaafayso insha Allah. xafladan ka soo qayb galo inoo suurta gasho waxaan kaloo aad ugu mahadcelinayaa kambaligan kilwe oo noo hirgeliyey dhismahan aadka u qurux badan iyo kambaligii ka shaqaynayay oo dhisay oo dhismahan soo bandhigay iyo mulkiilihii labadaba aad baan ugu mahadcelinaya. aad iyo aad ayaan ugu hambaleynayaa dhalinyarada kambaliga arrintan ka soo shaqeeyey waxaan leeyahay بارك الله فيكم وما شاء الله وبارك الله فيكم وحاوي إننا وحنا نكرر إننا نكون ضينه. هذه أقدر فرحان هاي إننا ما أنت كشوا غير دول حفلة تروج عفرايو سفاري مول حقيقي تاني حالي وداولي مول كان نركيسة يبليه يبناكيسة أنت وحن شروك أنا هذا مدة عند بوتلان جوجي magaalooyinka oo dhan waa maray moolkan mool la mid ah Puntland kuma yahay banqabaan isku soo siyaado waxyaalaha laga faa'iido waxa ka mid ah in ay dhalinyaradu ka helaan shaqo oo halkaas raydkii shaqo la'aantu uu meesha ka baxo oo ay dad ka shaqeeyaan. waxa kale oo faa'iido oo iyadana laga helayaa in la helo goobo dadku ay ka heli karaan wixii ay u baahnaayeen. waxaan u ducaynaynaa kambanigan kilwe construction oo hirgeliyay moolkan. waxaan leenahay Allah ha barakeeyo hantidooda, Allah ha barakeeyo nafac iyo khayr Allah ka siiyo. waa u hambalyeynaa waxaan leenahay hambalyo soo dhawaada aad iyo aad baa mahadsantii. ilaahay mahadi weeye maanta safari mool inuu fadhinaa inuu kuwa ka waaweyn baynu fadhisanaynaa dhalinyarada horseeday inay intay dibadda maal ka tabcaan maanta dalka dib ugu soo celiyaan si ay u soo jiitaan walaalahooda kaleeto dibadda jira ee qaarkood dareensan yihiin in aan dalka waxba laga samayn karin. Medal job, please.